iyadoo habeennimadii xalay ahayd markii ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo ku dhawaaqay liiska golaha cusub ee wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa waxa arintaasi si aad uga soo horjeestay qaar ka mid ah golihii hore ee wasiiradii dowladda xilligeedu dhamaaday iyagoo ku tilmaamay doorashada golaha wasiirada cusub inaanay ahayn mid ku saraysan qaab dhismeedka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah golihii hore ee wasiiradii aragtidooda ka dhiibtay xukuumadda cusub magacaabista waxaan aaminsanahay in sida loo sameeyay in lagu degdega aaminsanahay haddii la fiiriyo xagga tirada iyo xagga tayadaba dhibaato weyn ayaa uga jirta waxaa lagu jiraa waqti xasaasi ah oo dib u heshiisiin ah oo colaad laga soo baxay waxaa la rabaa midda kale waddankii dhaqaalihiisa in dib loo soo baxeeyo magacaabidda golaha wasiirada tobanka waxaa fiican in shacabka iyo golaha shacabka intaba ay fahmaan mas-uuliyadda iyo saaran mas-uuliyadda magacaabidda golaha wasiirada waxay saaran tahay wasiirka koobaad laakiin sida muuqato oo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba guux badan dhacayo guuxaas wuxuu dhacayaa dhowr sababood sababta koobaad waxa weeye sabab qabiili oo dadkii waxay leeyihiin anigoo qabiil hebela meeshiis kama arkay waddanku wuxuu ku jiraa waqti nabadeyn ah waqti mataqaanaa ummadda in la isku soo jiida la rabo dad haddii kalsoonida shacabka in la helo la rabaa way qurxaneed in la yiraahdo la iska wada arka meesha xukuumaddan cusub waa soo dhaweynaynaa maadaama ay kooban tahay laakiin muhiimadda ugu weyn soo dhaweynta ma ahan shakhsiga ma ahan numberka waa program waxaan sugaynaa baarlamaanku sugayaa programka ay la iman doonaan xukuumadda cusub waayo 4 sano barnaamij cad oo qeexan oo xisaabtan leh ayaa loo baahan yahay ay talaabo wanaagsan soo kortay dawladdu wasaaruhu wuxuu magacaabay 10 wasiir oo tayo leh oo maaragtay dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo ugu soo xushay kartidooda aan aaminsanahay inay kartid badan leeyihiin oo dalka wax badan ay ka bedeli karaan si kastaba haatee taliyayntii ay soo baxday liiska golaha wasiirada cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa iska daba imanaya cabashooyinka kala gedisan ee ka imanaya beelaha iyo sidoo kale beelaha Soomaaliyeed oo ku aadan inaanay ku saraysnayn qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya Aadan Jaamac Ahmed Samsat Muqdisho.